بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa 12 bishii toddobaad 2017 waana kala fadhigii labaad ee kulankiisii koowaad. waa ilaahay mahadiisii oo baarlamaanka mar kale isku soo noqday waxaana loo qaybiyay miisaaniyadii 2017 iyo xisaabirkii 2015 ilaa xisaabirkii 16 ayaa loo qaybiyay. waxyaalaha hadda uu gadoonkana uu sheegay oo aan ka hadlay waxay ahayd taariikh 8 xaflad lagu sameeyay iskool booliisiya oo madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka qayb galeen. nin sheekh ah oo ummada oo anaga ixtiraamayno ku jira oo leeyahay Sheekh Nuur Baaro oo golaha shacabka uu gaf u geystay guriyooda ha loo galo halal leeyahay yiri runtii sida aan la soconnay madaxda qarankana aan ka jawaabin arrinkaas oo goobjoog ahaa taas ay ahayd. marka arrinkaas uu ahaa arrinkan hadda gadoonka baarlamaanka uu ka hadlay inuu xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo isku afgartaan uu noo sheegay ujeedku intaas ku saabsan waan mahadsantihiin.